noloshu waa caynkaa haddaad nooshay waxaad u nooshay inaanad garanayn meel aad u socotana aanad garanaynin wax kaa dambeeyana aanad garanaynin waa nin gudcur gudaya baad meel madow baad socotaa ilaahay wuxuu leeyahay waxaasoo dhan mawcidaa kaga caafimaadaan shifaaun lima fi suduur wixii laab ku jiray wax lagaga caafimaado baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala baa idiin soo dejiyey iyo wahudan waraxma hanuun iyo naxariis laakiin ciddii ilaahay naxariistiisa ka jeesataa waa luntaa dadku inuu sidan u lumo maxaa keenay kow waxaynu leenahay caqiida xumo dadka maanta lagu dayanayo western civilization baa dunida horseed ka ah oo hor socda western civilizationna maanta waxa ugu weyn almadhab الnafci madhabka ah wax walba in maado lagu qiimeeyo oo maxay iga soo gelayo inaad tidhaahdo aadamaha inay maadadu ka qiimo badato aadamaha inay maadadu ka qiimo badato dawladaha horu maray baan laba tusaale idinka siiyay in bini aadamka maadadu ka qiimo badantay kambanigan Ford la yidhaahdo ee Maraykanka ah ayaa gabadhi soo saaray gabadhidii uu soo saaray baa cillad bireegyadiisa wax ku saabsan baa la ogaaday dabeetana waa la suugareeyey waa la ashtakeeyey maxkamaddii dalka Maraykan waxay ku xukuntay compensation inuu bixiyaan magdhow oo dadkii shilkaa galay gaadhigiina galiyey marka ay bixisaan magdhowgii baa aqbaleen shirkaddii baa fadhiisatay waxay isweydiiyeen 12 milyan oo gaadhi baa suuqa ku jira 12 milyan oo gaadhi inaynu soo celinno kharash badan baa ku baxaya baa la yidhi laakiin inaynu dadka layno oo lacagtooda bixinaa ka kharash yar dadka in la laayo oo lacagtooda la bixiyaa ka kharash yar saa daraaddeed waxay go'aansadeen dadka wixii dhimanaya ha dhintaanee compensation kaanu meesha ku haynaynaa waanu uun kii dhintaba oo iska bixinaynaa inaanu kii dhintay beersadka dhimanaya qiimahooda bixinno waxay tilmaamaysaa bay leeyihiin aadanuhu valuega uu meesha ku leeyahay qiimaha bini aadamku uu ku leeyahay qolo kale waddankan Polandka la yidhaahdo ayaa malaha sigaarka hala joojiyey waxbaa laga hadlay dabeetana kambaniga sigaarka iibiyaa wuxuu keenay research baxfi uu leeyahay dawladda waxa u fiican inay sigaarka daasato oo waayo sababtan la leeyahay sigaarku waa sun oo caynkan oo kansar buu keenaa dawladda kharash badan buu ka hayaa shaakil maaha bay leeyihin lacagta idinka soo gelaysaa ka fiican oo sigaarka lacagta ka soo gelaysa dawladda waa maxay waxay dhahdeen marka kharashka koska la eego sigaarku dhibtuu keenaya faa'iidadu keenaya badan maxaa u malaynaysaa faa'iidadu keenaya inay tahay faa'iidada ugu badan ay xisaabiyeen waxa weeyaan dadka sigaarka cabaaba yidhaahdeen 10 sano ay ka da'yar yihiin dadka kale caadiga ah mostly bay yidhaahdeen sida caadiga Yurub benshanka 65 ma lagu galaa dhimashadooda waxay qiyaasaan average inay 78 years tahay 10 sannadood bay dawladdu pension dadkaas siisaa 10 sannadood bay guryo iyo caafimaad iyo mushahar siisaa intaasaa idinka maranaysa bay yidhaahdeen intii pensionkaanu kharajinaynaa dadka haddii sigaarka loo sii daayo waxaa meesha ka baxaya maxay 10 sannadood intii noolaan lahayd macnaheedu waa maxay beesadaa ka qiimo badan qofka bini aadamka ah haddii lagu xaaqi karo oo lagu marin karo oo lacag lagu helayo waa inaad dhimataa qaanuunka dunida u yaalla waa kaa waa inaad dhimataa idan madhabka nafciga ahi ee Yurub ay haysato ama ninka caadi u haysto ee xaggana soo faafaya waa madhabka keenay waxa qure uu bini aadamku qiimeynaya inay maadada noqoto noloshuna inay macna beesho caqiidada iyo diinta iyo aakhira iyo waxaana ila ilaabo ilaahina wuxuuna leeyahay faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa war ma dadka kuwa madaxa ku socda hanuunsan mise kuwa qumaatiga u socda waxaan leenahay noloshu
haddii aad garan weydo waxaad u noosho caqiidadu lunto kuwa ugu waaweyn ee aqoon-yahanadee maanta dhallinyaro badan ay daba socoto Richard Dawkins professor macruuf oo la yaqaano selfish jin ku caan baxay ayaa waxa la weydiiyey noloshu maxay qiimo leedahay agtaada nolosheenu maxay qiimo leedahay wuxuu ku jawaabay waa meaningless noloshu macno ma leh idan haddii lagu buufiyo sida quraanjada macno ma leh waayo khayr iyo sharba ma jiro agtiisa khayr iyo sharba ma jiro hitler ma la ceebayn karaa bay idhaahdeen haddaynu saa u egno waxay leeyihin maya haddaynu saa u egno waa maya soo duuduubo jaamacadkan maraykan mid ugu weyn kuwa ugu waaweyn ka mid ah Hopkins University ayaa ardada ku jirta waxa la weydiiyey waa maxay waxa ugu fiican aad raadinaysaan boqolkiiba 67 baa waxay ku jawaabeen inaanu nolosha macnaheeda fahamno waxaanu noolay inaanu garanno qiyaas arday dhan oo jaamacadaha dunida kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah jooga oo le waxa ugu weyn aan rabnay inaanu ogaanaa waa inaanu nolosha macnaheeda fahamno maxaa loo nooliyey Victor Franklin in la yidhaahdaa wuxuu leeyahay ardayda maraykan aan wuxuu dhigo boqolkiiba 55 waxay dareemayaan buu leeyahay inay noloshu macno lahayn inay noloshu empty inay maran tahay saashay isweydiinta le waxa weeyaan dadka maran ku dayanaya iyagoo halkay tegayaan marka ninka nin maran daba socda nin waalan hadda daba gasho